أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودو عشر كيني لعطبات كورس كيني PHP for beginners. عشر كم حنقة هذي دونا constantis كوا محي constantis كوا حويان عشر كورو حنقة صادنا variableska ولا بتبدلي كرا variableska waxaan kusoo sheegnay inay yihiin container ama weel wax ku hayo kale aad kolba kala soo baxaysid wixii aad ku shubatay imka hadaad weel caana ku shubato caanihii baad kala soo baxaysaa hadaad wax dhex dhigato containerkii waxa wixii aad dhex dhigatay baad kala soo baxaysaa variablesku saasay ahayn waana la bedeli karaa variableka waxa lagu bilaabi jiray $sign marka aan eegno variableska iyo constantiska waxay ku kala duwan yihiin casharkaagii course-keeni wuxuu noo yaalay folder-keeni sida samka html course-ka waa kan open soo dheh halkaas inoo marisay marka variableska marka constantis ayaan ku bedelayn halkaas constantis marka imka waxaan taas waa variable buu ahaa imka kaba soo qad variable kani waan dib ugu celinaa variable x dheh waxa buu noo hayaa wambadhe haddana waxa tiraahdaa variable x wuxuu noo hayaa tuubadhe soo xidh echo variable x $sign x marka haddaan save karayno aan soo kicino samkeeni waa kan start dheh apache kan kalena start dheh markaan soo kicino waxaa odhanaysaa localhost course-keeni enter taabo marka enter marka noo soo baxaya marka markuu sidaa noogu soo baxo waxaa kasii doonaysaa lesson php markuu noo soo baxay maxaa noo soo baxay two siduu kusoo baxay haddaba two wuxuu kusoo baxay variable-keedan x wuxuu noo hayay markii koowaad 1 variable-kan x haddana dib baan u magacawnay two buu noo hayaa marka kaas waa la masaxayaa waa ignored waa la iska indhatiraya haddaba waa maxay constantisku waxa weeyaan iminka variable-ka x constantisku waxay noqonayaan aan mid kalaba aan bahlayno constantisku waxa weeyaan waa variableska wala bedeli karaa laakiin constantiska lama bedeli karo waxaan ku yiri variableska wala bedeli karaa laakiin constantiska lama bedeli karaa haddaba constantiga sidaa soo maraysa sida qorso xoreysa define marka tiraadid laba bracket ayaad furaysaa waad xidhaysaa marka magaca variable-ka halka ku qoraysa magaca variable-ka waxaa waxa doonaysid by comma u dhaxaysiinaysaa by-du maxay ahayd 3.14 bay noo ahayd intaasay ahayd marka soo xidh semicolon waxaa echo marka by baad oranaysaa echo by marka by-dani waa taa by-di marka save kare notepad-keeni qabo refresh kare halkan maxaa kusoo hadhay 2 iyo 3.14 aan kala jarno waxa halkan br baa lagu qoraa sidii caadiga ahayd br intani waa code html kani waa html code waa intaasi waa php intana waa php markastaad xidhid waa code html ayaad qori kartaa laakiin wixii halka ku dhex jira waa php hadduu xidhmo waa html keeni waayo waa burigiiban ku dhex jirna haddaba markaan iminka save karayno eeg haddana waxa dhaca
way kala degayaan labadaasi way kala baxayaan. okay, 2gaasi waa maxay? 2gaasi waayo 2gaasi waxa weeyaan waa kaas echo extra variable kaas 2 buu nahay variable ka byna wuxuu noo hayaa 3.14 ka waran variable ka x ayaan ka dhigaynaa mar kalaan hadana magacaawayna variable ka x ayaan odhanaa 2 loo geeyay 8 waan xidhaynaa waan save garaynaa variable kaasi. haddaan refresh garayno wuxuu noqonayaa buu noqonayaa ka buu noqday waayo isku geeyay waayo labadan waa ignored waa la masaxayaa kaas ugu dambeeya ayaa la bedelayaa ay noqonaysaa. laakiin ka waran haddaan nidhaahno define aan nidhaahno by hanoo leekaato 44 ba aan nidhaahno ka waran soo qaad aan save nidhaahno aan nidhaahno echo by aan nidhaahno aan dib u nidhaahno echo by aan save garayno maxaa dhacaya? error baa dhacaya. maxaa dhacaya? aan eegno waxa dhacaya. okay, notice waa constant by already defined mar hore la soo sheegay waa lagu line 16 marka 3.14 weeyaan line 16 line 16 may waa kan mar hore la soo sheegay waa lagu marka line 16 waa ku khalad ba meesha leeyahay taas. haddaan save garayno aan ka baxno aan refresh garayno haddaan refresh garayno caadi buu soo noqonaya. waxaan kala ku baranaa cashirkeen constantiga waa kuwan oo define bad ku horeysiinaysa variable ka magaciisa sheegaysa waxaad kala sheegaysaa wuxuu yahay. haddaan kala waxaan sheeginaa waxaan kala maanta baranaa waxaan kala baranaa commentiska ayaan baranaa. iminka halkaas haddaan qorno b aan sidaa soo xidhno oo aan save garayno aan sidaa u soo bahalayno maaragta warning buu ku leeyahay wuxuu ku leeyahay waxaan constantigan la garanba maayo maxay yihiin la garan maayo waayo la garan maayo. laakiin koodka haddaan ka dhex saarno oon xagga caadiga bodigaas caadiga aan ku qorno caadi weeyaan kood html uu noqonayaa kood html ayuu noqonayaa halkaas wataasba. laakiin haddii aad doonaysid wax inaad qof ku fahansiisid oo kale aad doonaysid marka comments waa wixii aanad adigu arkaysid koodkaaga ku dhex arkaysid laakiin aanu soo execute gareynin php gan. imka waxaan odhanaa waa 10 php la soco maaragta intaas koodka waa laga boodayaa la soo execute gareyn maayo la soo sheegi maayo halkan lagu soo qori maayo. imka haddaan refresh garayno arkaysa waxa waayo soo sheegi maayaba. markaas commentiska laba waxba loo qor laba shay baa loo qoraa mar laba jeer laga horeysiinayo backward forward slash ya mar waa marka line kaliya tii kaba soo qaad haduu laba line yahay kaba soo qaad waxaana forward slash star asterisk waxaana laba enter line bas kale waa backward slash labada hab ayaa marka commentiska loo qoraa. haddaan save garayno kaba soo qaad aan halkan soo refresh garayno maaragta waxa ma soo baxayo commentiska maxaan ku soo sheegnay commentisku waxa weeyaan koodkaaga haddaad doonaysid sharaxaad dheeraad inaad ka bixisid oo kale ayaad u baahantay oo aad halkan wax ku dhex qortid qof oo kale ugu sharaxaysid odhanaysid kood kan waa variable egasoo kale saasoo kale aad leedahay markaasoo kale ayay fiican tahay oo qof kale madhow koodkaaga markuu eegayo siduu u fahmo waxana waxay yihiin waxaan waxaa ku soo tala gashay ayuu laakiin koodkan la soo execute gareyn maayo ku arkimaysid browserkii ku arkimaysid. marka laba hab baa loo qoraa variableska waxaan ujeedaa commentis waxaa loo qoraa mar laba backward slash laba forward slash oo marka line kaliya taa laakiin backward slash forward slash asterisk
asterisk kale iyo back forward slash labadaas inta u dhaxaysana intaad doontid ayaad ku dhex qori kartaa intaad doontid oo line ayaad ku dhex qori kartaa laakiin kan waa line kaliya hadduu kaas soo baxo caadi uu noqonayaa code-ka la soo execute gareynaya marka ashirkeenaas intuu soo nagu joogayaa practice waa inaad ku celcelisaa inaad daawatid oo kaliya maaha waa inaad aduna waxaan samaysaa markaas aad u sii fahmaysaa waa inaad waxaan samaysaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.